maalinta dhan halkaas ku oynay qaana ma aha ma garateen aniga haddii afkayga aan furo afkayga haddaan furo boqol waxa ka soo baxaya been midii sheegay laakiin maanta wax walba sidee u jiraan halkaan ka cadeynaa iyo wax walba iyo xaqiiqda dhabta wada taagaysiin inaan meeshan ka cadeeya diyaar u ahay ما فهمتي بليز ام بليز قف آدم اسكو بين ونولشيسا اي وقتيسا اي جهديسا آدم اسكو بين اسكو قرسنين نمبر 1 نينكا نينكو دانينا مياي نمبر 1 نينكا نفتنين قيمة سنتهاي او كربو او كجعل مياي نمبر 1 مياي ما نقكرا مسؤولية هذا مقادي كرا يا نوين أو الجبر من للسيء الجبر اللي قدري أو ما ركت أو وين أو إلهي وين واحد أو قاضي محل مسؤولية قاضي أو حضنا أن إسكتي إنه مسؤولية قاضي كورم حكوت المعاملة هذه حاسئلة نقف لنا مسؤولية يو لجسوا جاي حاسئلة هذه أو مسؤول رجع ما أنت جو مسؤول ما نقن كرام رجع ما أنت جوجا مسؤول ما نقن كران قبل الصومالية دي أو مقن يا مسؤول كإيه الله يا ولا بالله طلع ولا بالله طلع حاسمي مكرن كريم يا ما أنت إنا وح أنت صلي غرابه مربي بين ميدي شيء الجراس وحلاقة إنا حلقا كرابه مرة dad badan oo waxaan arki jiray social media noloshooda iyo farxadoodan ku soo bandhigay xanuunkooda iyo maaragtay dhibka ay qabaan ku soo bandhigay intaba waa arkani ya weligay social media noloshooda private-ka oo ma aanan hadlin laakiin maanta go'aan waxa iga go'an inaan ka hadlo been midii sheegay waxaan hadalka u googoynaa aad aan u xanaaqsanahay maalinta dhan halkaas ku oynay yaa la aaminaa waay yaa hee la aaminaa aniga waa la yaabi jiray dadka wallaahi waa la yaabi jiray naftooda iyo noloshooda waxooda qaaska u ah walaalahay taas waxay ahayd Shaadiye Sharaf oo ka hadashay muuqaalkii xalay saqdhaxa soo dhacay ilaa hadda la isla dhixmarayay kaas ay soo deysay ayaan tafshaan haddaba ayaan tafshaan oo wada garanayseen oo caan ku ah inay gabdhaha ma aragtay caanka ah ay soo cayso ay tiraahdo anaa milyan gaarsiiyay anaa 2 milyan gaarsiiyay haddii 2 milyan is gaarsiin karto horta ayada is gaarsiin leed waa qof aan 500 kun haddii follower aan haysanin Shaadiye Sharaf waxaa la dhahay wiilkaas way wada joogeen way isqabeen de maxay u guursatana ma dhaheen anaga waxa waa xiligi guursanaysa oo xili ay kala tageen Cabdi Fataax iyo waxa la isku haystaa xili intayna Cabdi Fataax guursan koor waxa war xaqiiq aan igu soo gaaray inay Cabdi Fataax ayada kala tageen dalaaqadii ka dhamaadeen ayadana ay wiilkan si maxalal ahaan oo hoos ay u guursatay asagana xaaskiisa uu ka qarinayay dabadeedna uu iska daayay oo leeyahay sidaasna hadalka maaragtay ay ahayd hadalkii asaga uu yiri ee gabadhi macnaha cod ahaan ugu soo duubaysay oo akhrineysay xaaskiisina waa iska dareemi kartaa way maseertay wixii markay aragtay sidaas bay waxa la yiraahdaa tafshaan ugu dirtay ayaan tafshaan ayaana maaragtaa isku dayaysa in gabadha sumcadeeda ay ku ciyaarto Shaadiye waa qof sharaf leh waxa waaye hooyo Soomaaliyeed hubka hoos looga dhigo waxaana leenahay hore u socda ayadii Cabdi Fataax yare waxaan rajeynayaa muuqaalkan in maaragtay halkaas uu ku soo ekaado arrimihiisa wax kale badan insha Allah taala way ka soo hadli doonaan oo qadarka qudhiisa live soo gali doono waxaan rajeynayaa in uu sheegi doono sida xaqiiqda dhabta hadalka u jirto oo maaragtay raaci doonin sida iyaan hore amal maaragtay xaaskiisii wixii live-ka macnahaas ay ugu soo qasabtay inuu raaci doono isxil qaami doono oo maaragtay ka soo hadli doono arrinta dhabta ah oo gabadhaas walaashiisana oo xumeyn doonin
mana dee ka rajeynayna mana sameynayo qadar waan ognahay marka walaalahayga waa kaasaa waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala in ay maaragtay lamaanaheen insha allah waa isla jecleen haddana isla sii joogaan baan rajeynaynaa haddii aad janalkayga ku cusub tahay ay tahay waqti kuugu horeysay waxaan si sharaf la kaaga codsanaa inaad subscribe noo saarto haddii oo maaragtay aad hore noola joogtana nala sii joog muuqaalo badan aa idiin soo wadaa wixii aad jeceshaa janalka inaan ka bedelana xagga commentiga insha allah tacaala igula wadaagi doontaa iyo sida adiga ay arrintaaneta la walaaqaayo oo la qasaayo ay kula tahay horta dabcan muuqaalka waa editing taas layskuma haysto muuqaalka waa laysku keenay labadooda ma ahan laakiin codka baa dad badan shaki geliyey oo codkeeda ahay asagana waxaa la dhihi karaa waa la jarjaray waa laysku keenaa la dhihi karaa anyway wixii runtaa siday u jiraan ilaahay subxaana watacaala unbaa og waxaan leenahay ilaahay ceebta ha asturo intaa muuqaal kaleeto ku kulmeen oo walaashin jiijo idin leh allah macaka fi amaanillah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu take care bye bye